Paul Pogba wuxuu bixiyay wareysi aad u dheer oo kaga hadlayo arrimo badan oo ku aadan soo laabashadiisa ganaax laga khafiifiyay dacwadii lagu soo oogay arrimo badan. Wareysi uu bixiyay iyo kaga sheekeeyay arrimahaasi muuqaalka sheekadan ku soo qaadan doona qaar ka mid ah waxyaabihii Paul uu ka sheekeeyay soo laabashadiisa sida ay noqon doonto. marka muuqaalka like saar saaxiibada la wadaag page-kana follow inoo soo dheh. Paul ayaa sheegay inuu yahay ciyaaryahan daacad ah oo marna khiyaano sameeyay kadib markii laga dhimay ganaaxii lagu soo rogay ku saabsanaa isticmaalka walxaha mamnuuca ka ah ee maanka dooriya. Paul ayaa markii hore la ganaaxay 4 sano bishii Maarso kadib markii lagu helay natiijo togan oo muujisay inuu isticmaalay maadada testosterone-ka taa oo keentay in si ku meel gaar ah looga hakiyo ciyaaraha tan September sanadkii hore. kadib racfaan dheer baaritaan ay sameysay maxkamadda ciyaaraha kaas waxaa la dhimay ganaaxa Pogba laga dhigay 10 bilood taa oo ka dhigan inuu dib u soo laaban karo ciyaaraha bisha Maarso ee soo aadan. kaas waxay go'aamisay in qaadashada Pogba walxaha mamnuuca ka aysan ahayn mid ulakac u sameeyay balse ay ka dhalatay qalad uu sameeyay kadib markii uu si qaldan u qaatay daawo uu qoray dhakhtar ku sugan Florida. wareysigu Sky Sports News Pogba ku guuleystay koobkii adduunka 18 ayaa ku celceliyay inuu yahay ciyaaryahan nadiif ah oo aan weligiis wax khiyaano samaynin. dadka ay garanaya way og yihiin in marnaba aan isticmaali lahayn wax mamnuuc ah si ulakac haddii ay dhacday ma ahayn waxaan ulakac u sameeyay. waxaan ahay qof jecel sportiga, waxaan jeclahay ciyaarta, waxaan mar walba rabaa inaan guul gaaro si cadaalad ah. Pogba ayaa sidoo kale sheegay inuu yahay qof neceb inuu guul dareysto laakiin marnaba ma qaato dariiqooyin khiyaano ah si uu guuleysto. wuxuu ku adkaystay inuu ku soo laaban doono garoomada isagoo diyaar u ah inuu mar kale ku biiro xulka qaranka Faransiiska isla markaana taageerayaasha tusay inuu weli yahay ciyaaryahan heer sare ah oo daacad u ah xirfadiisa. inta badan ciyaartooyda waxay hayeen kuwan isoo xiriirin nolol adag ayaan galay yiri Paul, laakiin qofkan ilmaami doonin waa N'Golo Kante ka mar walba la soo xiriiri jiray. waa qof aan weli ilmaami doonin ninka lagu magacaabo N'Golo. Pogba wareysigiisa aad ayuu dheeraa oo kaga sheekeynayay xaaladihii uu la kulmay. Pogba ayaa diyaar u ah ganaaxiisa markuu dhameysto ilaa bisha Maarso wixii ka dambeeyay inuu garoomada ku soo laabto una soo bandhigo bandhig aad u sareeya, bandhig dadku aad u yaqaanaan. laacibkan ayaa ku xawaaway inuu soo ciyaaray Juventus iyo Manchester United iyo xulka qaranka Faransiiska. xilligan wuxuu daneynayaa inuu mar kale Juventus ku soo laabto inkastoo kooxdaasi xilligan ay doonayso in heshiiskiisa ay kansasho. kooxo badan ayaa daneynaya sida Olympique de Marseille Faransiis ah iyo kooxo kale oo qaarad Yurub ah sida u aragta soo laabashada Paul Pogba.